wafdi uu hogaaminayo wasiirka hawlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland Cali Xasan Maxamed oo ay kamid yahaayeen mareeyaha wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland xubno kamid ah gudida sare ee dhismaha wadada isku xidha Ceerigaabo iyo magaalada Burco ayaa booqday biriishada Geedlibaax kala jab iyo dubur oo ku yaala deegaanada u dhaxeeya magaala xeebeedka Berbera iyo magaalada Burco iyadoo socdaalkan ay wafdigu ugu kuurgalayeen xaaladda ka jirta biriishada oo qaarkood qaba dhaawacyo ay soo gaarsiiyeen roobabku iyadoo wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland uu doonayo inuu wax uu ka qabto sida ugu dhaqsiyaha badan dayactirka iyo dib u dhiska lagu sameeyo biriishada wadanka ku yaala ee roobabku ay waxyeeleeyeen Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan wasiirka hawlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland ayaa ka waramay talaabada dib loogu dhisayo biriishada iyo jidadka dalka iyo ahmiyadda ay ugu fadhido bulshada iyo isku socodkeeda 4 bilood ka hor baanu nimi halkan aynu taagnayn iyadoo gidaarka qaybtaas u dhamay dunsan tahay oo ilaa kaabada wixii ka dambeeya ay camuudi muuqato waxa marka wax laga qabtay waa aragtaan gabyanka garbaha waaweyn shubka ah meesha ku samaysan shubkan kale xagga hoose ku samaysan alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeyaan deegaanka waday calaaya sideedabana dayactirku waxa uu muhiim u yahay خسارة هذا وحير قبل الله أيه هدي وحلا قبل الله وحوين وخسارة وين كارسية كقولة دي هوشة فلوسي أو شركة دليل توفيق كنت أدق ولا حتشعر لا بيفلي أنا دي أدنى مهتسين من تين نسكا يدعي تركاسون بين كوضي إن يكر ميركا سي إنفراستراكشر كانوا لباتي خسارة وين وسوا كارين هذا هوشة ينوها دي وحوين ضوحة قابك وبيهو مريان ayaa dhibaato ah wadaragtaan imka biyo xaqani biyahan xaqan maraya waxay u dhacayaan dhinacan markii hore jabtay taasoo markii hore khasaaro keentay marka biyaha in la balance gareeyo ay dooxa si siman u maraan baa inoo hadhay mareeyaha wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland oo wasiirka kooxda halka ka hadlay Xasan Cali Cismaan ayaa tibaaxay horumarka laga gaaray dhismaha wadooyinka dalka iyo dayactirka lagu sameeyay biriishada dalka maal wasiir bridge-kan waxa weeye bridge-kii Geedlibaax magaalada Laalays iyo Hudud soo dhaxeeyay oo bridge-kan bilownay inaan wax ka qabano bridge-kan wuxuu ahaa runtii khatar buu ku jiray inay biyuhu waxyeelayaan daadadku ka hortag buu u baahnaa runtii maal wasiir waxaynu ku talaabsanay inaan hawsha wax ka qabano hawshaasna si uu muuqato adiga arkaya runtii si wanaagsan wax looga qabtay walow hawlay ku dhiman tahay laakiin maanta alxamdulillah daad iyo biyo waxyeelo uga baqayno bridge-kan insha Allah wafdiga uu hogaaminayo wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland ayaa kormeer ay ugu kuurgalayeen xaaladda jidadka gobolada bariga Soomaaliland ku maraya gobolka Togdheer Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid iyo Khadar Abiib Ismaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka u dhaxeeya gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer